ciidanka gudoodaash ciidanka dalka Soomaaliyeed ma ahayn ciidanka booliiska Soomaaliyeed ma ahayn ciidanka asluubta ma ahayn ciidanka maxaan ku iraahday nabad sugidda ma ahayn afartaas ciidana dalku leeyahay weligiisna dowladdu tirtay inta badan afartaas ciidan u lahaa kacaankii ka hor military iyo booliis ay jireen nabad sugidda booliiska ka tirsanaa jirtay kacaankan yimid nabad sugidda uu bixiyay ciidan waayo dhahay asluubta ciidan ma ahaa jirin kacaanka ciidan waayo dhahay afartaas ciidana la sameeyay haddana dastuuradeena u dambeeyay afarta ciidana la qaatay waxyaabaha oo waa wixii aan naqiinay oo aan ku haynayn kamid ahayd wax aad looga wixii laakiin haddana sharciyaday haystaan qaanuunay leeyihiin waa tilmaamayeen dalku afartaas ciidan u leeyahay saasayna awalna ahayd ciidan gudoodayaasha yidhaaha jiray meel ka tirsanay lama garanayo sharciyad qaanuuneed ma lahayn daday xiri jireen daday dili jireen daday muxuu ahay handadi jireen xorriyadda ka qaadi jireen jidadkay taagnaayeen dadkaan muxuu ahay loo adeegsan jiray laakiin lama garanaynin waxaanay qaanuun waxaana waa maxay sababtu maxay tahay dowladdii berigaas jirta lafsadeedu qaanuun kuma salaysnayn dowladuhu laba si ay ku jiraan midna qaanuun ay ku jirtaan midna xaqiiqo oo dhulka tim amrul waaqic xaqiiqo dhulka taalay noqotay oo waa nin military xoog arrin ku qabsadayo lagama daba hadli karo wixii dawlad looga baahnayna waa la yimid amnigii uu la yimid adeegyada bulshada uu la yimid wixii uu la yimid laakiin sharciyad ma haysto lama soo dooran shacabku cod kuma lahayn talo kuma lahayn labadaasba dawlad adduunka waa ka jiraan dawladeennii oo misalan kacaanku dawlad oo amrul waaqic xaqiiqo ku timid niman ciidan oo military dalka qabsaday waa dhamaatay adeegyadii dawladnimo looga baahnayna inta badan waa bixiyeen hadday tahay adeegyadii bulshada isbitaaladii iyo iskoolaadkii iyo wadooyinkii iyo amnigii iyo maxaan ku rahay wixii waa jireen laakiin wixii kale oo maxaan ku rahay xorriyaadkii ay ka mid ahaayeen wax badan oo kale yaa maqnaay ama soo gaagaabanaya maalinta ka dambayso siyaasadda waa laisu dili jiray waxyaabaha reer wax kamid siyaasadda in laisu dilo waa wax saxa maaha siyaasadda sideeda horta waa inay ra'yi noqotaa war noqotaa tala soo jeedin noqotaa ra'yi qof jeedi in loo dilo marka mirna sax kuma aha hadduu meeshaas ka gudbo qof qorya qaato dadka xabadeynta ugu badficay tago dawladdu waxay u jirto waa markaas dadka waa inay ka qabataa laakiin min meel taagan oo la aniga hebelaa la iiraa ra'yigan dawladnimadan qabaa ama dawladdaani ra'yigaanay ku qaldan tahay ficilkaanay ku qaldan tahay waxaanaa ka qalloocana hala toosiyo dadku waxaan ma qabato qaanuunkay ka soo horjeedaan waxaan hala dhowro qaanuunka dastuurka hala dhowro qof kale halmarina ammaan uu mudan yahay ciddii ammaan weydana waa cid dhinaca kale usii dhurtinaysa xagga kale usii dhurtinaya xagga kale usii dhurtinaya baryahan marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan horta waa wadaniyiin goormaa dad yaay waayo qofka xaq u leh caasha waa wadani أحمدنا وضني معه علسو وضني أحمدنا ما جامعنا وضني معه قفك إسكال حكم كاس يا جارك ما تتلبسوا استعداده محوها جامع وضني علسو وضني معه أما عاش وضني أحمدنا وضني معه ما أنا ضحي يا نهي أنا المكان ساس ضحي قفك أنا وضني معناه المكان ده قفا وضني هنا الجروي سماه يا هذه قفا ودني أهين أنا وجري قفا اللي هو ودني أنا ده هم بعنا ضد هو ودنيين بركوا يجعلين إلى قف أولي المال قانون كحضايا قف كستا دنب الملك إلى دنب أسر أولي المال محكمة واحد بس دنبير إلويا وردت كان وصومالي وودنيين دلكوا يجعلين وأبنتين وأبنيك بحين وأبتاريه ولد عشورتي للتاريه بحين يعني أيضا وحي عشورت اللي بدل الله عليها يسن يا أنا رجعي قرن بريء ما تشاء أولد وبحنان ما أنت إن هو قاند للدنيا ودنيين يرى هو كاننا ودنيين ما أنا يرى صح معه حوجت جالس ما أنت كتبسين شغالة رجل كان يكتبسين رجستك الدولة شغالة دولة بيجرا عيدا مياه عيدا ماذا بيكتبسين ورب bulshada rayidka oo madax banaan oo madalooyinka bulshada rayidka ah ee dalka dhan meel kasta ka jira miyay ka tirsan yihiin
dhagihiina kor ha laga dhigo astaamo aan ficnayn waaye afcaasha iyo jiritaanka iyo sharciyadda wax lagu qiimaynayaayo magaca iyo bulhaada iyo huuhaada iyo muxuu ahay gurbaantumidda iyo buunyeeridda ma aha maxay yihiin waxaan la sheegaya in isweydiinaan u baahannahay calaamo fiican ma aha sax ma aha haddii la rabo dowladdu ha sharciyayso xoogaga wadaniyiinta shaqaalaha rayidkii ka tirsiyiin ha dhacdo ayadu faraha ka qaadee dad ayagu is-abaabulayo meel taagan oo bulshada rayidka oo madalooyinka loo hay-adaha leh oo taagan ha noqdaano dad ayagu isu tagayo meel maalinta ku shiray bannaanka taagan ha noqdaan laakiin niman sharci lahayn sharciyad aan haysan qarashka dowladda in lagu bixiyo abaabul lagu bixiyo oo wakiilka maxaan ku idhahdaa hebel degme hebel wakiilka degme hebel maxaan ku idhahdaa la yidhaahdo iyo maxaan ku idhahdaa wakiilka hebel muxuu ahay gobolka iyo wakiilka xaggaas la yidhaahdo waa soo joognay shalayaan soo aragnay waana ku soo hoognay yaa naloo celinay dowlad sharciga intay ku taagan tahay oo qawaaniinta iyo dastuurka ay ku dhaqmaysa ayay dowlad tahay waa la aqbala waa loo hoggaansama maalinta ay sharci ku dhaqmi weyso dastuurka baalmarto shuruucda kale jira ay baalmarto loo hoggaansami maaha waa loo sheegaa war waa qalloocateen war jidkii waa kasii leexano waaysiin war bardonaalkaa ku socotiin duurkaad aadeen war ka soo noqda waa loo sheegaa hadday ka soo noqdaan alxamdulilah waddadii la yaqiino dadku ay samaysteen ay ku soo noqdaan hadday ku soo noqon waayaan naxarigaa laga furana waa idin keligii waxaa sabiyo haysiinaa la leeyahay xisbiyadu codka ay u taagan yihiin codkaas waad maqasheen maalmo badan oo ka hadalnay mana ka caajisayno waa ku celcelinaynaa dadka dowladdu waxay dowlad u tahay dadka dowladdeennu waa qabaryar tahay wax badan oo dowladnimada u baahneed waa ka dhiman yihiin wax badan oo caqabada ah oo ciriiri ah oo dowladnimada dhimayo waa ku taagan yihiin waxaasoo dhan waa garanayna inaan ka garab istaagnaan diyaar u nahay inaan ku garab istaagnaan diyaar u nahay inaan u wihiilinaan diyaar u nahay laakiin waxa aan dowladnimada waxba ku tarayn ama dadka noloshooda ciriiri gelinayo ama culays gelinayo dowladda isma garanaysa maanta nolosha dadka qaarkood sida ay ku nool yihiin dowladday dhib ku tahay laanna qofka canshuurta uu dhiibi kara ma dhiibaayo businesskiisa haddii xirmo canshuur muxuu dhiibayaa dhaqaalihii uu heli jiray haddii aanu helin canshuur muxuu dhiibayaa dowladduna maxay ku nooshay ku jirtaa canshuurtaasay ku jirtaa marka dowladda in badanna waa ugu baaqnay welina waa ugu baaqayna waxaan rabaa marka madasha xisbiyadu waxay u taagan tahay inay cod midaysan waxyaabaha muhiimka loo baahan yahay ku dhaqdo waxyaabaha dadka Soomaaliyeed xaqa ay u leeyihiin ka maqan ama ka dhiman qabyada ka inay ka digto ishaatira dadku waxaana ka maqan waa inay helaan maanta dowladda joogtaa la dhaha biri kii yimaada la dhaha haddaan annaga nahay haddii kuwa kale yihiin waa la dhaha maanta kasii dambaysana waa la dhaha